waxa TV-ga ka sheegaysa xalay toole 1960kii in reer awdal qaabkii ay doorashada qaabkii xildhibaanada loo soo xulay waqtigaas saamigii la qaatay inay qaataan waxaan ku sheegayaa aad baan kugu mahadnaqayaa siyaasadda Somaliland wali waa qofkii teetal xisbi haysta ama xukuumadda Somaliland ku jira ee sheegay 1960kii inay cadaalad dhacday Somaliland marka la yiraahdo maxaad ka go'deen laba qodob baa la sheegaa waxa la sheegaa kow cadaalad darro 60kii dhacday waa sida dastuurka ku xusan laba waxa kale oo la sheegaa xasuuq walow aan xasuuqaan la qabin aanu dadkii la xasuuqay kama soo jeedin waqtiga xasuuqa iyo hawshaasi aanu waxaan difaacayna qarankii ummadda Soomaaliyeed baan difaacayna reer awdal hadaan ahayn sida idinku aad u taqaanaan faqas waana ku faanayaa kaman cuqdadna kama qabo waxaan ku sheegayaa 1960kii hadaad leedahay waxaynu ku qaybsanay cadaalad baa dhacday maxaa magaalooyinkii waqooyiga Soomaaliya ee sanad u baabiisay haday ay leedihiin mar cadaalad darraan ku ka tirsanayna baanu taliska u la dagaalamayeen maxaa wixii ummadii u dhimatay maxaa burburka inta la eegu dhacay hadii cadaalad ahayd Mustafa waxdadow maxaa cadaalad darro hadaan ka soo cararin maxaa soo dhibaatay maxay u dhaceen madaxweyne magacaabi kasta oo aad magacawdo taad xilalka isku shaandhayso iyaad ka dhex saartaa xil reer awdala waxaad ka dhex saartay xilalkii hore waxaad ka dhex saartay hay'adda shaqaalaha markii hore janankii madaxtooyada ka dhex saartay oo aad ka dhex saartay maanta waxaad ka dhex saartay hay'adda wadooyinka aad ka dhex saartay manihi dad suhalaa waanu ku arkaynaa halka wax ku wado reer awdal waxaan leeyahay digrootooyinka madaxweyne biixiba idinku filan waxaad ka sugtaan waxa kale iyaduna ayaan daraa maxaa maalin walba marka reer awdal siyaasi reer awdalihi ka hadlo waxa gobolka awdal u danta maxay u damqadaynimada Hargeysa joogay waa su'aal reer awdal weydiinayo Professor Ahmed Ismail Samatar baa waxa uu ka hadlay hotelka Rays buu ka hadlay waxa uu ka hadlay saraakiisha Ilaahay waxa ay tabiye xinif waxa ay tabiye Xasan Gaafadhi waxa ay tabiye rag fara badan baa ay tabiye oo laha heer local buu noqday ma maalinta uu localka noqonaya maalinta uu dibta dadkiisa haysata ka hadlana siyaasiga reer awdal ma local baa lagu tilmaamaa oo ku tilmaantaan shalay toole Axmed Yaasiin Shaacali aan la hadlay xalay toole waxa hadlayay taasoo nin bahadlays maxaad u damqanaysaan marka siyaasi reer awdal iyo boorama yimaado hadayna cuqdatu nafsi kale idinku jirin oo idinku aydan gaar u xidhnay waxa kale oo aad la yaabana oo aad la yaqsoodaan oo madaxweynaha ceeb ku ah maanta talada haya maalin kasti marka uu isku bedelka sameeynayo bedel mas'uuliyad kala sareeya haddii maalinka maanta ay wada hadleen mas'uul reer awdal mas'uul kale oo ay shaqada ku kulmaan wuxuu markaa bedelaa reer awdal tusaale koo maqsuusinaya waxa wada hadlay gudoomiye xinif iyo ninkii Khadar Sheekh Cabdullaahi Saacal Joor Luurani madaxweynayaad bedeshay waa looga Khadar baad bedeshay waxa wada hadlay oo ay ugaayeen u joognay oo wada hadlay hay'adda wadooyinka iyo Cabdullaahi Abukar ninkii barigi ku dagaalamay Fariidka ahaa iyo isaguna markaa wada hadlay iyaad bedeshay Ismaan Sheekh Cabdullaahi bedeshay waxaad bedeshay agaasimihii biyaad bedeshay waxay wada hadleen wasiirkii ka sareeyay reer awdal waxaan leeyahay cadaaladda Muuse Biixi marka inaan beesha dhaxa ay wada hadlaan mas'uuliyiinta meesha wasaaradda wada joogta madaxweynaha waxa u fudud inuu bedelo ka reer awdal inuu bedelo reer awdal waxaad moodaa inuu madaxweynaha u dhaqmayo dadka uu marka digrootooyinka ku magacaabay si dad ciidan ula jooga waa nuux kadiye magaalada Boorama loolama dhaqmo si dad reer Somaliland oo la xajcelada leh labada mas'uul ee isqabsada looma gar qaado ka oo kiraalaha aba markaa baleeriya waa wax caadi ah waa dhibaatooyinka ku soo kordhay xukuumadda maanta ay ku hayso dadka reer awdal